Waxa jaaniba ayaa waxaa la leeyahay waxay dagaal ka sameeyeen qaybo ka mid ah magaalooyinka magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika. Kooxdan ajaanibta ayaa waxay dagaal uga hortageen kooxihii qowlaysatada ahaa ee dalka u dhashay localska ahaa ee intaan waday kacdoonka ka dhanka ah ajaanibta. Waxaa la sheegayaa inay sameeyeen waxyaabo la yaab leh oo aan loo dulqaadan karin in ilmihii yaryaraa iyo habrihii umulada ahaa iyo wixii guryaha ay ka soo saaraan ay alaabtii u soo tuuraan. taasoo kacdoon ku dhalisay isla markaana inay falcelin ka sameeyaan ku qasabtay ajaanibta marka la isku daro dhammaan ajaanibta nooc walba leh ee Afrikaanka ah. Anaas Afrikaanka madowga waxay ajaanib u yaqaanaan dadkan Afrikaanka ee madowga sidoo kale ah. Marka kuwaas oo Congolese iyo Nigerian iyo Burundi iyo Mozambique iyo walax iskugu jira Zimbabwe ayaa waxay sameeyeen iska dhicin iyo iska caabin. Marka nimankaas soo baystaan dadka soo Afrikaanka waa cabsanaan marka soo Afrikaanku sidoodaba iska dhicsi wax ku leeyihiin sidoo my friend iyo raali noqo iyo excuse me wax ma ku lahan. Marka waxa la sheegay shalay xitaa booliska waa soo kala dhexgali waay. Dhacdadaani dhacdo oo waxay u ahayd cashar u ah maanta meelihii ay shal ku dagaalameen ciidanka dawladda yimid ciidanka dawladda howlgaladooda ka watay dadkii gacmahooda ku qabanaya sharcigan macnahu waa cabsadeen ayagu marka waxaa leeyahay waxay aad dadku uga adeeg yihiin locationadooda iyo meelahooda baadiyaha iyo xarumahooda marka loo ma ogiye marka ay banaanka soo baxaan meelo kala yimaadaan xoogaa waa la iska dhici karaa. Waxaa la leeyahay shalay waxaa la yiri waxaad sheegaysiin waa u dulqaadan weyne waana ku daalnay waana iska kindhicinaynaa dalkiinana macnaha waa joognaa waana ku noolnahay waxna kama bedeli kartiin oo saas la yiri marka aad soo qaadato wareysadii iyo fiidiyoodii laga diyaariyay inkastoo hadalladaas xanafta leh iyo qaarkood aanan hadda diyaar u hayn in aan soo qaadano. Marka meelaha qaar waxaa muuqato in la iskaga dhici karo duduule iyo qashinkooda. Dhacdooyinkan waayahanba waa ay soo socdeen waxayna ka mid tahay waxyaabaha la yaabka leh ee 2 sano ilaa 3 sano ee la soo dhaafay dalka Koonfur Afrika ku soo badanay. Waxaa la leeyahay waxaan waa wax dadku ay ka dhaxleen maamulada jiro oo maamulada jira ayaa marka horeba dadku u iftiimiyo farta ugu fiiqay kooxo badan oo kala duwan oo macnaha maxaan ku iraadaa walax cilmi ku salaysan aanan hadda wadin isla markaana dad macnuhu aqli ahaan xataa u korsan aysan ahayn ayaa waxaan horkacay waa ku ugu doonsana kasta dawladdu kooxo qaar ay ku tilmaamtay inay yihiin dambiilayaal haddana waxaad moodaa in xubno dawladii ka tirsan ay iyagu nafsad ahaantooda caawinayaan oo aysan macnahu ayagu meesha taagan waxay rabaan inay sameeyaan aanan u sheegaynin. Waxaa la arkayaa ayagu marmarka qaar alaab dhamo nin leeyo ka ganacsanaya iska qaadanaa iska tuura iska daadinaa dukaan inay iska galaan alaab iska xaaqa macnahu ayagoo markaasi u arko fursad waxyaabo yar yar oo soo Afrika ka dhashay bilooyinkii la soo dhaafay ama sanadihii la soo dhaafay oo